in ayna ayaga darsina siin karin 15 ilaa 19 sano jirka ah ee sida sharci darrada u dhalaya caruur. I was reading quotes on you this week. I learned to caruur mid 9 jir ah ayaa noo jooga. maxaan haddaba isu guursanaynaa? hadda tusaale ahaan waxaan hor joognaa accountiga Amnesty International, laakiin aadan maqlaynin hal hay'ad oo ka hadlayso. I'm 15 years old and I had her when I was 14. She's currently 4 months old and she is the best thing that's ever happened to me. So my name is Ava. I'm 16 years old and I'm a mother of 2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا موضوعا حلقة وحن كلنا وجهت عاد إن أين أيق الدرس نسين كرين إن أين أيق الدرس نسين كرين تلو واكو كواس أنا الدرس نسين كرين هدك دقن موضوع عيان كو أركينا وحن كوسو بندق دونا أنت أن موضوع عن كوجود جرنا حقائق كل دوان موضوع عن كهرلينا أننا سو حجنينا إلى الربع إلى لجو كلسوني هاي قلباتك وحكجرة جارهان sanadadii u dambeeyay in lamaanuhu wada noolaadaan ciyaal dhalaan hal guri ku wada noolaadaan ayagoona isqabin ay sahlan tahayna inay kala tagaan xitaa ayagoo caruur joogaan sida garaafkan uu muujinayo aanu imaan doona dabcan aan sharxi doona 1955 hoos hadaad fiiriso ilaa yani waqtiyadan hadda aan joogno waxaad arkaysaa farqiga u dhaxeeya teenage-ka yani 15 ilaa 19 sano jirka ah ee sida sharci darrada u dhalaya caruur gaar ahaan wuxuu ka hadlayaa hooyooyinka gabdho 15 ilaa 19 inta u dhaxaysa jiro ku dhalaya caruur si sharci darro ah in 1955 wixii ka soo bilowday gaar ahaan Mareykanka ilaa waqtigan ay aad kor ugu kacday kadibna nimankii dhalay caruurtaas ay isaga tagayaan maadaama inay isqabin haddaba maadaama uuna jirin guur diiwaan gashan oo ay xuquuq ka dhalanayso waxaa sahlan in uu ninku dhaho albaabka ka baxnuu kala wad ayadoona lahayn wax xuquuq ah maxkamadna aanan la aadaynin maadaama ayna diiwaan gashanayn laba qof oo meel iska joogtay caruur dhalay kadibna nuu kala wada waxaan soo bandhigi doonaa tirakoob kala duwan laakiin wax yar midkan waa Gerard Piqué لاعب عن حلقة إسبين إن هذيك برشلونة مدانا وشاكيرا فنانة عان يعني سيدو كلا لا يقان لبضان لغا صاب اللعبة لبضا كون إطبانكي إلى لبضا كون إلاباتان كان هدا أنكو جرى مال ما يركار واللبي إطبان سنة أيي لبضو دا كوضا نولايين هالقوري عرور أيهن أجوكتي كان نقوين أستغال سنة جريهي لكن اسمه قبان أصغالي طبعا وبيكي سنة أكدونا شاكيرا يعني وادي رويناتي أفرتني شنصن أياد مريسا وإنان متكالو كير رادية وإنان كبدلا adigana waa inaad albaabka ka baxdaa Gary Neville oo ah sidoo kale laacib hore ayaa Piqué weydiiyay qoftan yani maad isguursataan intaasoo sanad wada socotaan caruurta kuule maad guursatid Piqué wuxuu ku jawaabay Why are you not married? I was reading quotes on you this week. I learned 2 days I thought you're not married. No, I'm not married. There's a quote that says that it's like a forbidden fruit. She wants to keep you on your toes. You've got your work cut out there. Yeah, it's her mentality. I mean, I like it how we are right now. We have 2 kids, 9 and 7 right now. We work good as a couple. We don't have the needs to be married. It's fine. So you've sida aan hadda nahay ayaan ku qanacsannahay waana isla soconnaa caruur mid 9 jir ah ayaa noo jooga maxaan haddaba isu guursanaynaa 12 sano ayay guri wada degan yihiin caruur ayaa u joogta laakiin isma qabno isma guursanayno caalamka xagaal ku arko waxaan kale waraysigaas kadib dhowr maalin maxaa dhacay haddaba Voy a la playa había subido la marea. Piqué wuxuu arkay mid ka yar Shakira 20 sano jir ah bidabdi gabar yar wuxuu arkay 20 sano jirto kadibna wuxuu yiri hey Shakira waad weynaatay 45 sano ayaad maraysaa anigana wali 35 sano jira 10 sano ay ka weyntahay albaabka ka bax iska tag albaabka ka baxda yani maxkamad ma jirto xuquuq ma jirto waa in xogaan murugoota maadaama guur sharci ah xitaa ayaga sharcigooda marka loo fiiriyo una ahayn yani isla noolaayeen sida xoolo ay isla noolaayeen kaliya waa inay murugoota yani wax kale hor yaala ma lahan Shakira waa inay murugoota wax kale hor yaala ma lahan ayada ka Shakira ahaan fanaanad caan طبعا uma baahno yani shilimaadkiisa laakiin ka waran malaayiinta gabdhaha xitaa iskoolada dhigto aanan wali shaqaynin haddii canugu laga dhala kadibna iska baxayso gabar ma qiyaasi kartaa 15 sano jira oo yani fasalada ugu horeeya ee dugsiga dhexe dhiganayso saaxiibka haddii canug ka dhalo kadibna markuu arkay inay uur tahay iska baxo la xuquuq bayna lahayn wala maxkamad bayna aadi karin nagu kala wada weeye laakiin ma maqlaysid hal hay'ad xuquuqul insaan bint kalb oo arrinkan ka hadlayso Human Rights Watch
hay-adda xuquuqda ka hadasho yacni website-keeda marmar waan galaa waxaad arkaysaa tusaale ahaan dalkan qatar hadda aniga aan ku noolahay oo aan mar ku tilmaamay in wadamada khaliijka gaar ahaan yacni ay yihiin meesha ugu fiican ee ay macquulka tahay runtii inay dumarka ku noolaadaan gaar ahaan dalkan qatar jaamacadaha kuliyadaha ugu fiican ayagaa leh shaqooyinka ugu fiican ayagaa leh yacni xitaa sida human rights watchkan ay sheegayso yani sida ay sheegayso waxay leedahay dumarka qatar yani ayaga ayaa ka guul badan ragga dhinaca waxbarashada dhinaca mas'uuliyadda dhinaca jagooyinka yacni xilliyada qaar waxaad is leedahay dalkan dumarkaas ayuuba ku tiirsan yahay laakiin hay-addan waxay ka qaylinaysaa mataqaanaa hay-addan human rights watch ee hadda mashaakilkaas aan ka soo hadalnay galbeedka aanan ka hadlaynin waxay u qaylinaysaa gabdhaha ku nool qatar looma ogola inay keligood baxaan waana been gabdhaha ku nool qatar micnaha ninkii ay rabaan lama saaxiibi karaan arrinkan waa in la beddelaa laakiin ma maqlaysid ayagoo hal marna ka hadlaaya musiibooyinka aan ka soo sheekaynay hadda tusaale ahaan waxaan hor joognaa أكونتيجا أمنستي إنترناشنال منظمة العفو الدولية يعني أكونتيجا الرسمية يعني علامة صحة صار أنت تويتر كافك عربي وكهذا يعني قيبت هذا لغة بدن إليه طبعا أمنستي إنترناشنال يعني واحد لا عينيسا أو إكحون تاي أو الذي وأرن أنا لا أقبل كرين إهاننا إن وضمد السعودية إمارات كويت لبنان عمان أردن سلطنة عماني أردن معناها أي ممنوعين وضم بدنا مسلمين أي ممنوعين فيلم يعني كوباقة يقوم لودني ماذا فيلم يعني هذا سيدا نوع مقاطع يعني علامة حنتا مدبيضاس كوباقايو أمنستي انترناشنال وحي كنت المامي سأرين إهانه هنا لأقبل كرين لكن من مغليسد أمنستي انترناشنال أما هيومن رايتس واتش كهاليسو إن قبل إيه أفرتو مثلا جيركا أها إيه ودوين كل قطورة لويس استاقايو حقوق ليهين كون سقال بقولي كنتني شانتي إلى لبضا كوني سقالي طبانكي بقول كيبا وحاكر أكعي هو يوينكا تين يعني ماضريسكا شاني طبان إلى سقالي مثلا جيركا سيدا شرع الدرادة عرور كدلي أما أن ماريد تين ماضر سيدا ماشان كقرن جراف كان وحو موجنايا فيري هوس فيري يعني كون سقال بقولي كنتني شانتي انتي اهيد نسبة بقولي كيبا انتي إلى لبضا كوني شاني طبانكي إلى وقت كان جوجنا سيدا اي كور اوكا عدي قبلها يرير سيدا شرع الدرادة hooyooyinka u noqonayo oo intooda badan yani markay canug dhalaan saaxiibkood isaga tagayo kuray yar wali aan shaqo helin asagana 18 yani 17 sano jir ah markuu canug ka dhalo iskaga tagayo laakiin aadan maqlaynin hal hay'ad oo ka hadlayso tirakoobkan rasmiga ka soo xiganay طبعا waaxda cadaaladda Mareykanka wuxuu leeyahay 1955 hooyooyinka yaryar ee teenage-ka 15 ilaa 19 sano jirka ee caruurta ku dhalay si sharci darro ah waxay ahaayeen 14% كلية يعني دبعداس لبا وكون سقال بقولي كنتنا شنتي لكن عن فيرينو نسبة أنت جارتي يعني وقت هذا أنا جوجنا لبا كوني سيدة طبانكي نسبة كر أي أقعدي وحين جارتي سقاشن بقول كيبا دبع شن هو يوينك شن تمسنا جركة سيدة حاران تقول لايو عرور سشر عدراء كل شيء gabar 15 sano jir ah in ay si sharci darro ah saaxiibkeed yani uu uga dhalay canug waa caadi kadibna iskaga tago waa caadi laakiin dhinaca kale haddii gabar 15 sano jir ah si sharci lagu guursado wadan muslima waxaad arkaysaa dhammaan waxa hay-ad lagu magacaabo yani hay-adahan European American ayagu af mug qaylinayo laakiin arrimahan kale kama hadlayaan silcaan iyo saxariirtan kama hadlayaan aan sii wadna mudanayaal 1955 yani 9kii canug ee dhalato haddii aan dhahno tusaalaan 1000 qof oo ah yani caruurtaas ay 9 ka mid ah dhalaan caruur 77 ka mid ah waa 1955 waxa ka hadlayna 77 ka mid ah kunkaas waa kuwa isqabo halka 13 kaliya ay ahayd kuwa aan isqabin wixii la yani waa markaan ka hadlayno 1955 laakiin 2019 haddii tusaale ahaan 17 canug dhashaan tusaale ahaan isbitaal yar ayaa waxa ku dhashay 17 canug laba kaliya ayaa ka imaaday waalidiin isqabto halka 15 kale ay yihiin aabayaal aan isqabin ay dhaleen waxaan ka hadlaynaa ma ahan yani dad waaweyn waa caruurtaas iskoolada dhigta yaryarka 15 sano ilaa 19 sano jirka arrinka ka sii daran ma taqaanaan 2019 yani 19 aan soo dhaafnay wixii ka dambeeyay waqti fog ma ahan waxaa badanaya fiiriya isi soo taraayo in gabdho 15 sano ka hooseeyo yani 14 13 xitaa macquul 12 ay noqonayaan hooyooyin guur la'aan Mareykanka gabdho ka hooseeyo 15 sano ha wallah inay noqonayaan hooyooyin guur la'aan inta badanna
inta badan xaalado dhifa dabcan way jiri karaan laakiin inta badanna gabdhahaas yaryarka ah ee 15 sano ka hooseeyo yacni nimankii ka dhalay way iskaga tagaan mar ayaan waan raadi laakiin ma helin macluuma isoo martay hadda ka hor in dowladda Mareykanka sanad walba ay uga baxdo balaayiin lacag ah arrinka ku aadan kaliya gabdhahaas yaryarka iskoolada dhigto ee hooyooyinka noqonaya nimanka carruurta ka dhalayna iskaga tagayaan. My name is Ava. I'm 16 years old and I'm a mother of 2. I decided to make this channel so I can share my story because I am 15 years old and I had her when I was 14. She's currently 4 months old and she is the best thing that's ever happened to me. So, and some crazy things that happened during my pregnancy. I found out I was pregnant. I was dating this guy. We were in a pretty serious relationship and laakiin aadan maqlaynin hal hay-ado arrinkan ka hadlayso maxaan arrinkan uga hadlaynaa arrinkan waxaan uga hadlayno kow waa in ayaga aynana siin karin wax darsi ama dhaleecayn ku saabsan xaaladda nidaamka macnaha qoyska haddii ay noqoto guur haddii ay noqoto sanadkay ku guursanayaan haddii ay noqoto wax walba ku saabsan in aanan hay-ad Yurubiyaan ah ama galbeed aan waxba ka dhageysanin in hay-ad kastoo Yurubiyaan ama galbeed ah noocay ahaataba oo arrinkan ka hadasho arrin ku saabsan macna dal muslima in wajiga candhuuf looga tufo imshi min hina la dhaho halkan ka dhaqaaq in la dhaho albaabka ka bax waxba idinkama dhageysanayno inta badan wadamada muslimka waxay ka hadlaan waxay ku magacaabaan azawaaj almubakir guurka gabar 18 sano jir ah 17 sano jir ah 15 sano jir ah sidee loo guursani macquul ma ahan guur ma qaadi karto yana la guursanin yani waa gabar la guursaday yani si nidaam ah xuquuqdeeda wax walba yani qof nidaam guursaday sidoo kale waxaan leenahay anaga ka muslimiin ahaan macnaha ka mujtamac ma ka diin ahaan mashaakil badan waan leenahay laakiin dadkaas yani qudwa nooma ahan ma ku dayanayno hal hay-ad oo leh ma maqlaysid يعني hay-adahaas haddii ay noqoto Human Rights Watch kan iyo ay hay-ad kale oo galbeed ah oo arrinkaas ka hadlayso yani waxay leeyihiin qadar gabdhaha saxiix waa sax inay waxbarashada ku fiican yihiin in shaqooyinka midii rabaan ay tagi karaan laakiin ciday rabta lama saaxiibi karto halka silic iyo saxariirtaasna ay ka aamusan yihiin in gabadha ayadoo yar yani fuxsha kasta ay samayso nin walba ay la seexato 10 canug hadda dhashay wadooyinka ay ku silicdo waaw yes way u saacbin waa xuquuqul insaan laakiin in haddii la guursado sharci loo guursado maya ma yeelayno kaliya yani waxa aan mawduucan u samaynayo waa in aan faafino wacyigan kaliya waa in dadkaas wax la xiriir qoyska in aanan ka dhageysanin in markii qof Yurubiyaan ama hay-ad Yurubiyaan ay isku dayaan in ay ka hadlaan wax qoyska la xiriiro noocay hadaan baan stop amos adika ma dhageysanayno qofkaas waxa laga yaabaa ninkaas kule ama naagtaas leh ama qoftaas dumarka hele sidaan samee gabadheeda inay wadooyinka yani ku silcsan tahay inay wadooyinka khamri ku cabayso laba canug ay wadooyinka ku haysta ninka ka dhalay inuu iskaga tagay waa macquul kaliya markii shanaad miya waxaan u baahanahay waa wacyi hay-adahaas in aan waxba ka dhageysanin markay hadlaan inaan iska dhaqaaqno ama aan dhafarta ka gelino Umar Inshaar wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh